san oo ilaahay ka baqaysaan oo aad alla taqaanaan iska qabta anfarna waxa weeyaan ina cagjar faraha kala baxo waxaan sida ay leeyahay ina cagjar anfar faraha kala baxo warma been baan sheegaynaa sawkan ma ina cagjar iyo ya awal arba isla fadhiyaan maxaa kalood noo sheegaysaa markaas saw kuwan ma isla fadhiya ina cagjar iyo awal arba waxan soo maaha ayaa markaa dabka la saaray iyaa la laynaya iyaa maatidooda la barakicinaya waxaan halkan nagu la soo fadhaysanayno ani laygama warramayo dowlad deegaan hadday noqoto hadday dirdhaba noqoto aniga laygama warramayo laakiin wax badan baan xeerinaa war bilow maalin waxaan isbedel laablakacna ma lihin waxaan idhahnaa war bilow waxaan maalin uun isbedeshi war maya dadka aqliga aanu saaxiib ahayn bala kicinina war ka joogsada dadka laakiin wixiiba dee waa isla soo waxaa la yidhi folitimada guda qarsimaadhe wixii oo dhanba miiska isla yimaadeen odayadii meesha aad odaya ka dhigayseen ee 12 ka ahaa waxay noqdeen 3-4 jeeblay noqdeen dhalinyartii guryahay joogtaa xaggii kale galbeedka city cidna uma maqan ceelo uma qodno anu waxaan oran lahaa kow haddaan caawa tala soo jeediyo war ina cagjar faraha ka qaado city faraha ka qaado waa kow laba odayaduna waxa weeyaan siyaasadda ay ku milmeen waxa weeyaan faraha kala baxaan siyaasadda ay ku milmeen faraha kala baxaan wayse kala bixi waayeen maalin maalmaha kamid imika waxaad maqasheen dhaawac baa jiri iyo canfar iyo waxa islaayay iyo galbeedka city aad maqasheen sooma ciisa la islaayayo waa kan dhaawaci meel la kala geeyo waxa la yiri qofka waxa soo socda aan garan waxa jooga waxba kama yaqaan waxa nagu soo dhow imika qabiilka ay noo bilaabmay waa la kala fadhiyaa waa kan jifa loo hadlayo la reer barina waxa ku xigto sideed adoo in hebel aad adkar u qaadatay war mataasaan u fadhinaa war meesha waxaan leeyahay ha laga kaco dhalinyartii waa tan maanta anigu maanta shaqan ku jiray way soo waceen waxay doonayeen inay iga qayb galiyaan ayaan darro nasiib darro demaan joogi waa kuwan ma been baan ka sheegaynaa sheekadanaa ka jirta dee city waa kuwan mudaharaadaya kuwanna waa kuwan mudaharaadaya dhalinyartii waa kuwa mudaharaadaya walaalayaal waa kuwa meel walbaa laga kacay waa kaa la mudaharaaday dadkii oo dhan saas ugu mudaharaadayaan waxaas waa dhalinyartii ma aha dad kalayte waa dadkii isku haybta ahaa waxa weeye city ka soo jeeday cidii garan baa garanayso dadkii city ka soo jeeday weeyaan war ma waxaad maqlaysaan war waxaan arki jirnay waryaada aabayaasheen waxa weeyaan waxay samayn jireen ayagaa dadka u hadli jiray dhalinyartuna rag iyo dumarba way ku dayan jireen way maqli jireen laakiin ma waxaad aragteen dad aan dadkiiba u hadlay dad aan dadkiiba loo baxay afar jable odayga hadduu noqdo maxaa yaa iyo halkee laga hadlayaa anu waxaan odhan lahaa talo waa mar labaad waxaan ku celinayay 12 nin aad leedihiin waa 12 oday
والله وين يبيين هدانا ديسكريدين ويسكو كنديلي دونان waxaa la arki doonaa jifo loo aasaya dadka hay ilaa intay doontaa noqoto haddaad maanta aad ka kici weydaan haddaad maanta ka dhiidhini weydaan haddaad maanta iska istaagi weydaan haddaad maanta iska garab istaagi weydaan haddaanad gacanta isqabsan haddiisan ninka maanta walaalkii halkan lagu reebay ee lacag darteed odayadu ay u reebeen ay cadkiisiina ay soo qaadeen ee dirdhaba maaragtay lagu iibinayo kii lacag haysta maanta waxa weeyaan jeebkaaga day wax ma haysataa wax buura la leeyahay ee laga qaadanayo ee kadibna la leeyahay magaalada Hiblaayaa lagu soo qoray tag la leeyahay haddaad waxa eegtaan oo aad si eegtaan waxa weeyaan waxa ku xigta dhimasha ku xigta war hal laga kacaan leeyahay anigu meel walba joogtaanba hal la diido arrinkaasi waxaan lagu soo dhaxturo waa ina cagjarna markuu waxa soo tuuray ayuu dabada ka weydaartay awal arbu la fadhiya hayeelina ha aqbalina aabayaashin ma aqbalin wax weeyaan maanta haddaad taa aqbashaan ubadki iyo jiilasha soo socdana waxa weeye waa lagu dhaansanaya adiga maanta markii madaxaagii sidaa loo isticmaalay ee wax walba lagu yeedhiyey ilmaha kale kugu xigay ee wax ka daba baran doona waxa weeyaan waa loo yeedhin iska daaye waa lagu dhaansan beeruhu u qodi dadka beeraha iyo u qodi wuxuu noqonayaa minority wuxuu noqonayaa gun wuxuu noqonayaa looma ooyaan wuxuu noqonayaa dameer wuxuu noqonayaa wax lagu adeegto noqonayaa oo la sito adoon buu noqonayaa jiilasha ku xiga haddaanan maanta aanan laga dareerin oo laga hadal oo laga mudaharaadin oo la odhan war ma doofaar baa dadku wixii dhibaatada sidaasoo kale imika dunidan hore u martay way diidaan waxaasoo kale waxaas waa wax dhaafsan xadkii ama xuduud wixii loogu talagalay way dhaafsiisan tahay waxan war waa naf waxa laga hadlayo iska daa deegaan aad u hadashid iska daa galbeed aad u hadashid iska daa xaquuq kaleetee bila'aadanood raadisid iska daa dhaawacoo daweysatid iska daa laamiyo aad maaragtay lagu dhiso iska daa waxa weeyaan biyo lagu soo geliyood ka hadashid iska daa jidad lagu habeeyo iska daa waxa weeyaan materialkii iyo waxa weeyaan cusbitaallo lagu dhiso materialkii wata iska dhaaf waxaas war naf bay gashay anigu de waxaan leeyahay oo taloo soo jeedinaya hadalkaanoo ku daalay war ciso qofkii hadla waxa weeyaan waxaad u aragtaa wax kala inuu wax kala rabaad moodaa anigu waxaan leeyahay war meel walba waad ka soo xidhantay awalna jabuuti baad ku yaaci jirtay ood odhan jirtay jabuuti hadday xagga kaa xidhata xagga jabuuti aad u yaacaysa xaggii jabuutina ma jirto waad arkayseen dhallinyaradii iyaduna nafteeda u hadli kari weyde anu inaan soo qaato soo dhigaan doonay haddana waa damiirka ay siin waayey dhallinyaradii jabuuti aad arkayseen inaan halkaa soo saaraan doonay laakiin damiirka ay siin waayey rag da'dayda oo cabanaya oo weliba kula waan shaqaystay oo dhididkaygii ma haysto intaa awlaadana guriga ii joogtaa halkaan way xidhatay xaggii kaleetana waxa weeyaan maxay ahayd guban iyaduna waxa weeyaan iyaduna kaba daranba galbeedka sitina ogaaskiiba qasab ilaa intoo la soo kaxeeyay la yidhi halka fadhayso sida hashii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wallaahi waa la qasab baa lagaga dhig waa kaa odagaasi iminka wuxuu igu lahaa waad maqlayseen waa laga batay ku yidhi uu qurxiyey waa laga batay
bal yarkana ay soo qabada ku hay bal wareegayna kolka waxa weeyaan waa laga batay ogaaska waa laga batay waxa la yidhi qaraf tag ilaa intoo tagtid hee fadhayso waa nasiib xumo raxma soo dhowo walaal waa nasiib xumo waa ayaan daro waa nasiib xumo Ahmed Siyaad professor waa ku soo dhoweynayaa soo dhowow dee waa ku jirnaa maxaa u dambeeyey maanta maxaad ka odhanaysaa waa lagu wada dhegaysanayaa dhammaan qurba joogtii qaran joogtii meesha waa lagu wada jiraa wallahi maasha allah nabadoono waa mahadsan tahay marka hore waxaa kolay nagu cusub gobolkeena shan kastoo dee aad gobolaha macnaha maamuladii aad iskala wada socotay ta kale labaad shalay tolaa shaqaaqe yarba dhinacii ka dhacday dufo dhinaca afarta ahayd haddana waxaad arkaysaa iyadoo halkan dagaal socdo in cagjarayo awal arba ay isla fadhiyaan baa dadka arka waa dadka hadalkaan u daynayaa waan ku dhegaysanaynaa marka waan wixii kale ku odhanay waan ku odhan laakiin adigu ku soco inaan kaa dhex galgalaan diidanahay say dadku ku dhegaystaan ku soco marka waxay ina iyo awal arba waad aragtaa inaa dadka ay isla fadhiyaan ay isla gara fadhiyaan inay waxyaalahan shaqaaqadan ka socoto cundhufyana inuuna ka dambeeyin cagshirtaas baad ku cadaynayso in uu macnaha leeyahay magaalada hadhayna qaata waa qorshaha waa midaad ay macnaha caalamkoo dhan la socdaan oo indhihiinaba ku arkaysiin isha macalina marka aan waxaan leeyahay fikir ahaantayda macnaha dagaalka maanta ka socda jiid hore ee cundhufo waxaa ka dambeeya dowlad deegaankeena oo u horeeyo macnaha in cagjar ta kale labaad waxa uu qorsheeyey in ay macnaha madaxa isla galaan qabiilkeena ciise ama qabiilka aan hadda ka soo jeeday ee ciisaha in ay madaxa isku geliyaan ayuu qorsheeyey si maamulka iyo iyaku kuraasida war sii sheergaree walaalayaal isgaarsiiya looga sii baxo macnaha uu dhulkaas farayna kasii baxo maanta wiilkiina ciise waxaa ka dhex jira in shaqaaqo yar oo macnaha qabiil ay isku sheegayaan oo dhinaca horoonii ka hadlay dhinac madaxa gubkii ka hadlay dhinac aduu dee laysku horgegeeyey si kuraasidan macnaha ay iskugu laayaan kabacdina dee ay dhulkaaba war u hayn waayaan qorsho ah ayuu degay in cagjar macnaha cismaana kasoo dhaadhiciyey waxaan qorshahan oo dhanna waxaa wato waa in cagjar ibraahim cismaanna kubadii lagu soo leegay ayuu wataa maanta waxaad aragtay madaxweyne ku-xigeen intaa oo macnaha cimrigayga aan soo joogo weligii ma arkin madaxweyne ku-xigeen leh degmada hebel ku qora cimrigayga weligii ma arkin reerkayga macnaha qabalaha u dhiiba cimrigayga weligii ma arkin reehebel kaaga dhexdhaco reehebel qabalahan u dhiiba marka la leeyahay waa wax nagu cusub dee dhammaan iminka dadka halkan way yaaba yihiin waxa weye waa wax cusub waa wax cusub oo macnaha maskaxdayda macnaha maskaxda bilaadanka gaadan weyda ayay noqotay kiis markaa waxaad dareemaysaa in ciis laysjibiyo oona cundhufiya cadayti iyo galmudug midna uu hadal qaadin wixii isxasuuqayo reer hebel ba hagaa degay maxaa iga galay in la yidhaahdo ayaa soo socto mar dhow anu taas baa ka casbanaya in la yidhaahdo degmadaas reer hebel baa degee hala qaato oramada hadday dunta ha qaato xabashi ha qaato ure ha qaato in yidhaahdo inay soo socotaan ka casbi qaba laakiin waxaanoo dhanna waxaa leegayo waa kubadda in cagjar baa leegayo taasaa laga foojinaaa dhammaan ciise weyne inay isku duubnaan ciisnimadii soo ceshaan midnimadii ay soo ceshaan ciise xaaradii ay soo ceshaan macnaha inuu ciise dhulka lahaynin isceshaan ay macnaha ay ugu sii jirto qalbiga ayaan rajeynayaa waxaan leeyahay in cagjarow kubadda aad nagu leegnaga ibraahim cismaankana waa ilmo yar kubadda loo soo dhiibo ibraahim cismaan waxaaban maqlayba inuu isaguna underageka ku jiraba oo sida ogaaska u yahay 18 jir baan ku maqlayba
kaas kuba dhiibayo cundufa iyo cadayntii iyo garmul waxay dhibaatada ku dhacday marinkiioo yidhi wadada dhex maraya ilaa garmalow dhex maro ilaa cadayntii inuu gaaro wuu jarjarmaya maaqaana waa hawadaan u malaynaya ku soco waa kolay etoobiyada hawada nabadoon xuseen oo waad soo ogtahay waayo shan kasta hawada taas tahay ana waxaan odhan lahaa ina cagjar maalinkuu ibraahim cusmaan uu dhex maray garmalow ilaa cadayntii tegey ayay dhibaatada ugu weyne naga bilaamatay wax ka dambeeya arrinkaa ina cagjar ilaa haddana dhibaatadii uu noo sii wadaan ina cagjar dhibaatada hanaga daayo ciisanimawalaha isku duunida ku wadan buuna kala jebinayaaye ciisow dareen yeeshaan dhihi lahaa fikirkaasaan odhan lahaa walaalayo waa sax xagga odayada maxaad odhan lahayd cadka dadka intay yidhaahdeen annaga ina cagjaroo noo dhiib cadka ciisoo dhan oo dirraba kusoo shub ay yidhaahdeen haddana waxa weeyaan sheekadan iyo lase afar jeeblaha noqda iyo xadhiglaha maxaad odhan lahayd kolay xabaddaa way jirtaa wallaahi allahu aclam laakiin wax walba waxaad ogtahay haddana ilaahay baa kasog baa layidhi anuu xabadaan dirraba adiga cagmaan kaa helaya kii aan abtahayga ka helayo ayaan kursiga u dhiiban inuu yidhaahdo uu ay soo wada qortaankii yaro jeefronkii deeta in la soqoro ayaana siin yahay laakiin taana aan ku maqlin waa waxaan maqlay aaminana weeyaan taas magacaya keliyate waa ciddii jefron iyo hebel muukula dhashay hebel ma isku dhowdiin oo lacagla ah inay noqoto maaaan micnaha laygana sheekeeyey layguna yidhi aan arkay qaar hawada hawada kaa jarjarmaysa sug waa kugu soo celin way kaa jarjarmaysaa sug maxaad kusoo gudaanadii ood odhan lahayd waxaan odhan lahaa odayaasha u talinayo beesha ciise weyne in ay ciise nina caaruma dheera inay yidhaahdiin ay wada qaataan baxdayd in ay u kala saaraan maahayn micnaha kani lacag buu leeyahay iyo kani waxba ma shaqaysan iyo kani inuu aabihii uma joogiyo adeerkii ma dhowo inay yidhaahdiin ma qor badne reerka wala aabbay u wada yihiin dhalinyartana aabbay u wada yihiine ama nin aqoontiisa u kala eegaan ama nin reerka micnaha reerkoogii intay kasoo doortaan inta aqoon-yahanka ama inta xirfadda ula shaqada inay soo dhigaan baan odhan lahaa fikirkayga waxaan arkay oo kala micnaha oo labadayda indha usoo doogay wiiligu yidhi maanta haddii aan reernimadayda iyo hebel oo lacaglaha dartii aan ku heli waayo madaxafiiseed dib damba uma sheeganaye waxaa iska goynayaa saddexda micnaha ragga ee igu taallo tiisna uu ku helay ninkiis uuna ku dhaaray markii uuna ku helay taas baa oo kale ayaa ka socotoodie dii uu taaha naga daayaan baa odhan lahaa fikirkay waad mahadsan tahay professor aad baan kuu salaamaynaa sida fiican eed waktiga noo siisay sidaad wax noogu sharaxday aad noogu qeexday aad noogu tafaqtirtay aad noogu balballaadhisay jasaaka allah baan ku leenahay waana lagu wada maqlayaa maasha allah maxaad kusoo gabagabayni waxaan odhan lahaa maan ciisaha degmooyinka kala jooga ee sida afdam oo kale iyo ayshaco oo kale waxyaalaha ay wadaan iyagnaha joojiyaan ciise waa ciise nacar dheero dhulka waa la wada leeyahay taana naga damiya dhinaciina kale naga maqana gobolkeena aan ku dadaalla odhan lahaa ku fikirno oo micnaha si aan usoo ceshin lahayn dhulkeenna ayaan ku fikirno dhinaca jarna waxaan leenahay adeer faraha dad kala duweyda arrimaha gobolka city walaal waad u dhiman si cabdii la maray ayaad mari baa odhan lahaa asbulita kale ka socota ee dhalinyarada ay shirayso ay micnaha ay ka hadlayso degmada micnaha degmada way u qalantaa asbuliye maxaa dhalinyaradeeda loo shaqaysiin layahay leeyihiina kolay waa fikir fiican waa inay qadiyadda iyagu ka hadleen oo asbulinimo guud bay ka hadleene
way ku fiican yihiin baan ku saacsan yihiin ree afdameed maxaad iyagana odhan lahayd ree afdameed iyaguna waxa weeyaan si kale u yar fikireen baa la yidhi waa taas waa taa ka wadaba xuseen oo iga soo dhacgashay waxa weeyaan afdamna fikirka ay kaga macnaha ay sida fikir ku jira inay taacad kulli ku jirto oo kale uu inay ku jirtaa qurux badan inay yiraahdeen gudoomiyaha nooma imanay waa reebeliyo annaka maxaa macnaha reebelkan maxaa gudoomiye loo siin waayay inay yiraahdeen waa laga qurux badan yahay oo laha sida qadiyada ay reecas lagu hadleen oo kale qadiyada taas loola hadlo si fiican ma sha Allah jazakallah reecana oo laha walaalkayo hadduu walaalkaa qaldamay lagama doono qaldamine hadallada fikirka xun ee soo dhigdhigaysa in khadka joojiya iyo wada kulankeed sheegaysa in joojiyaan waa reeysha iyaguna Soomaa waa reeysha weeyga gobolka city wala siman yahay taas waa Allah fikirkiyo salaam waa ka qaadno waxa weeyaan waa dhalinyaradii oo guryihiisa ka soo noqotay jigjiga sheekadii way ka timiday dirdhaba way dhaaftay waxa weeyaan city bay socotaa dadkii waxba la iskugu dhiibay waana ciyaar waana game ina muxuu ahaa ina cagjar ka soo shaqeeyay waxa loo soo laagay waxa muxuu ahaa ninkii maxay ku xigeenka ahaa ayaa loo soo laagay isaguna ogaaskii lase wuxuu ku sii laagay gandihiina waxa weeyaan way fadhiisteen waxay bay yiraahdeen ba ninkii shaah haysta ninkii lacag haysta halkaasaan maraynaa anoo maanta buu ku yidhi anoo lacag haysta oo ka shaqaysta deegaanka haddaanan lacagtaydaasaan maanta ku meel marin oo aan odayada siin oon meesha heblaaya laygu soo qorin ninba mayhi buu ku yidhi saddexdaan iska goynaya wayna dhacdaa lagu yidhi halkaasaan maraynaa hadal lagu daalin maayo waxaasaa socda dhibaatadaasaa jirta dadkii geemtaasaa loo ciyaarayaa galbeedka city ee loo kacay ama laga hadlayay ama qaadhaanada loo urinaya ama lase dhibaatooyinka iyo dhaawaca iyo dhimashadii la doonayay in dadka la badbaadiyo ama waxa weeyaan dhaawaca la badbaadiyo ama dhimashadaaba la hor istaago la yidhaahdo maxaad isku laynaysaan filinkaa kalaa la keenay ina cagjarna xaggan u fadhaystay waxaan leehay war mar walba waa nila hadallaa war maantana waa nigu celinaynaa war haddaad dad tihiin war kubadda sidaasee lasoo laagayo annaga nooma fiicno ee haddii layska dayn waayo waxa weeyaan waxaa ku xigta waa dhimasho anu imikaba waa nii sheegay kubadda noocaasee lasoo laagaya haddaad iska ilaalin weydaan ood ka taxadari weydaan waxaad ka hadlaysaan afdamoo la yidhi ninkaa ree hebel weeyaano ma iman karayaad ka hadlaysaano waxa weeyaan dhimashaa ku xigta dhimasho imikaba dhallinyartu meelay joogtaba walaa reer ishaca walaa reer dambal walaa reer muxuu ahaa hadhagaala dhammaantiin walaa ku dirdhaba walaa meeshay doonta ahaato walaa afdam walaa biki meeshay doonta ahaato waxaan niigu baaqayaa war waxaasi berigii hore ma jirayna maanta haddaad waxaasi aad ka tashan weydaan oo degmo tuulo xaafad aad u fadhiisan weydaan waad ka shallaynaysaan inniga un baana ku hoogaya hooyadiinba waxaa la odhan jiray canfar baa sidaa soo barakicsan loodhan innigaa isbarakicin doon ninba hooyadiin baad barakicin doonti innigaa waxa weeyaan lafa marooda iyagaa la isku jabshaaye hadda qorigiina ina cagjar u helay ina cagjarna waxaan u sheegay galbeedka city faraha kala bax canfar annagaa isnaqaano adigaa isku kaya diray adigaa isku kaya laayay adigaa qoriga iskugu dhiibay adaa yidhi anaa ni wada matala run bay ku moodeen reer galbeed city run bay ku moodeen soomaalinimay iyo ku dhawaaqeen waanad uga baxday waana soo celinayaabaa tidhi ciidan waad geyn weyday cudud baad halkaa geyn weyday